السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخارتين شرفت لأي كحرن كان برف إنجليش cashirkeeni maanta waa cashirkeenii labaad ama qaybteenii labaad oo aan ku baranaynay boqolka oraahyo aan u isticmaalno sida maalinlaha ah ama sida joogtada u isticmaalno waxaa idiin soo jeedin doona anigoo ah Zakariya Maxamed intiinan cashirkan ku bilaabin fadlan waxaa aad idinkaga codsanaynaa inaad subscribe share like nagu caawisaan si anaga ay noogu noqoto dhiirigelin aad dinkana uga faa'iidaan cashirada iyo muuqaalada aan soo gelino mahadsanidin intiinan guda gelin cashirkeena faahfaahintiisa iyo tusaalooyinkiisa insha Allah halkan waxaa idinkugu hayaa qoraal yar oo inuu sharxayo waxa uu ku saabsan yahay cashirkeena maanta qoraalkan yar halkan inoo qoran waxay tahay basic English phrases for asking information about someone something or a place waa oraahyo muhiim ah oo isticmaalaysid markaa weydiinaysid xog ama information ku saabsan qof ama shay ama goob ku saabsan insha Allah marka halkan waxaan ku haysanaa tusaaleheenii koobaad tusaalahan halkan inoogu qoran waa tusaale ama phrase ama oraah aan isticmaalayno markaan weydiinayno xogtaas ha noqoto mid qof ku saabsan ama ha noqoto mid shay ku saabsan ama ha noqoto mid goob ku saabsan marka oraahdan yar halkan inoogu qoran waxay ku xiran tahay waxa ka hadlaysid waxa si daba dhigi doonta insha Allah marka halkan waxaan idinkugu soo bandhigaa tusaale si aan u fahanno jumladan iyo qaabkan u isticmaali lahayn insha Allah inkastoo aan soo wada bandhigi karin qaab walbo loo isticmaalo qof walba shay walba aan soo wada bandhigi karin laakiin waxaan isku dayaa insha Allah inaan ku fahansiiyo qaabka u isticmaali lahayd hadhow marka danahaaga ku qabsan lahayd insha Allah haddaan ku bilaabo midda koowaad marka waa sida tan could you please tell me could you please tell me fadlan ma ii sheegi kartaa fadlan ma ii sheegi kartaa could you please tell me marka waxaan leedahay this is the most common way to ask for information midda marka midda inta badan lagu weydiiyo information marka u baahan tahay qofka ku weydiinaysid could you please tell me can you please tell me waa isku mid hadda can you please ama qashid iyo could you please waa isku mid waa same marka halka example ku haysana ama tusaale waxayna leedahay Axmed iyo Xasan wali na daba taagan insha Allah ilaa in badan waa isticmaali doonaa labadooda could you please tell me how to get the train station could you please tell me how to get the train station could you please tell me fadlan ma ii sheegi kartaa could you please tell me fadlan ma ii sheegi kartaa how to get the train station sidaan ku gaari karo bosteejada tareenka could you please tell me how to get the train station fadlan ma ii sheegi kartaa sidaan ku gaari karo bosteejada tareenka xasana jawaabta bixinaya marka insha Allah qofkan wuxuu u baahan yahay inuu aado bosteejada aan dhahay bosteejada tareenka inuu aado qofkan marka wuxuu u baahan yahay qaabka ku gaari karo maadaama laga yaabo qofkaas meesha inuu ku cusub uusan aqoon u lahayn laakiin in loo tilmaamo qaabka ku tagi lahaa ama ku gaari lahaa xasana jawaabta qaatay wuxuu leeyahay you will see the train station waxaa arki doontaa bosteejada tareenka straight ahead of you marka tooska u socotid waxaa arki doontaa bosteejada tareenka ama si kale down dhigo toos u soco waxaa arki doontaa bosteejada tareenka hortaada kaaga soo muuqan doonta insha Allah you will see the train station straight ahead of you bosteejada tareenka waxaa ka arki doontaa tooskaaga ama horey u soco waa arki doontaa middan labaad ayadan waxayna leedahay can anyone tell me qof uun ma ii sheegi karaa oraahdan waxaa isticmaalaysaa marka la hadlaysid koox dad ah oo qof uun ka mid ah kooxdaas su-aasha weydiinaysid inuu wax ka ogyahay ama u yaqaano waa kan tusaalaha ama faahfaahintiisa use these phrases isticmaal oraahyadan when you are talking to a group of people marka la hadlaysid koox dad marka la hadlaysid waa hal qof maaha not an individual hal qofna ma aha waa koox dad su'aala weydiinaysid waa oo qof uun ka mid ah ayaga inuu yaqaano example tusaalaha marka waa Axmed wax su'aasha weydiinayo people waa dad Axmedna waa qofkii su'aasha weydiinayo can anyone tell me what time the bank opens can anyone tell me what time the bank opens
qof uu ma ii sheegi karaa saacadda bangiga oo la furayo qof uu ma ii sheegi karaa saacadda bangiga la furayo can anyone tell me what time the bank opens dadkii ma qof ka mid ah oo dadkaas wuxuu soo jawaabay ama wuxuu ugu jawaabay Axmed the bank opens at 9:30 am the bank opens at 9:30 am bangi wuxuu furmayaa 9:15 subaxnimo the bank opens at 9:30 am bangi wuxuu furmayaa 9:15 subaxnimo mideena saddexaad waxayna leedahay do you know ma ogtahay ama ma taqaanaa do you know ma ogtahay ama ma taqaanaa oraahdan goorma isticmaalnaa oraahdan waxaa isticmaalinaa markaa qof su'aal weydiinaysid su'aashaas qofka aad weydiinaysidna ee tahay su'aal asilada qofka ma yaqaana mise ma yaqaano aadan hubin inuu kaga jawaabi doono marka halkan waa faahfaahinteedii oo qaabka isticmaal lahayn ama goorta isticmaal lahayn ay u qoran tahay waxayna leedahay you can use this phrase oraahdan waxaa isticmaali kartaa when you are not sure markaadan hubin whether or not the person you are speaking to qofkaad la hadlaysid ama su'aasha weydiinaysid knows the answer inuu yaqaano jawaabta waa su'aal aadan hubin qofka weydiinaysid inuu yaqaano ama in kale oo iska weydiisay bas example marka tusaale Axmed iyo Xasan wada hadlay hadana Axmed wuxuu weydiinayaa Xasan wuxuu leeyahay do you know how long the movie is do you know how long the movie is ma taqaanaa filimka intuu soconayo ma taqaanaa filimka intuu soconayo ama waqtiga uu qaadanayo ma taqaanaa do you know how long the movie is ma taqaanaa filimka inta uu soconayo ama inta waqti uu qaadanayo ilaa uu ka dhamaanayo Xasan wuxuu ku jawaabay the movie is 1 hour and 45 minutes long filimka ama movie-ga ama filimka wuxuu soconayaa saacad iyo 45 daqiiqo ama 45 daqiiqo filimka wuxuu soconayaa saacad iyo 45 daqiiqo uu soconayaa do you know how long the movie is ma taqaanaa filimka inta uu soconayo Xasan wuxuu ku jawaabay the movie is 1 hour and 45 minutes the movie is 1 hour and 45 minutes filimka wuxuu soconayaa saacad iyo 45 daqiiqo mideen afraad waxayna leedahay do you have any idea do you have any idea wax fikrada ma haysaa do you have any idea wax fikrada ma haysaa marka su'aashan waxay la mid tahay midii aan ku samarnay hadda number 3 ama number 3 aan ku samarnay oo ahayd do you know ma taqaanaa waa isku mid labadan marka waa isku mid labadan qaabka u isticmaalaysid do you have any idea or do you know waa isku mid Ahmed iyo Xasan do you have any idea do you have any idea why today's class was cancelled do you have any idea why today's class was cancelled do you have any idea why today's class was cancelled Ahmed Xasan wuxuu leeyahay do you have any idea wax fikrada ma ka haysaa why today's class was cancelled sababta classka maanta loo kansalay wax fikrada ma ka haysaa ama loo baajiyay wax fikrada ma ka haysaa do you have any idea ma ka haysaa wax fikrada why today's class was cancelled fasalkeeni maanta ama fasalka maanta sababta loo kansalay ama loo baajiyay wax fikrada ma ka haysaa Xasan wuxuu ku jawaabay marka Xasan waxa leedahay halkan inuu wax fikrad ka hayo ama uu hadalla meelaha ka maqmaqlay marka Xasan wuxuu ku jawaabay it is because of our professor is not feeling too good it is because of our professor is not feeling too good sababta classkan loo kansalay waxay tahay professor keena muxuu ahaa fiicneen ama uu xanuunsan yahay oo kale professor keena xanuunsan xaaladiisa ma fiicna sidaas darteed loo kansalay fasalkeeni maanta do you have any idea why today's class was cancelled it is because of our professor is not feeling too good wax fikrada ma ka haysaa fasalkeena maanta sababta loo kansalay fasalkeena maanta waxaa loo kansalay professor keenan fiicneen maanta xaaladiisa
middan waa mid shanaad ayadana waxaan leedahay where can I find xageen ka heli karaa where can I find xageen ka heli karaa marka meeshaan tusaale waa shay aan ka hadlayna item waa shay jumladan badanaa waxaa isticmaali kartaa markaad dukaan wax ka iibsanaysid ama supermarket wax ka iibsanaysid oo shay aad raadinaysid marka shaygaas meesha uu yaala weydiinaysaa qof ka mid ah shaqaalaha dukaanka ama shaqaalaha supermarketka qof ka mid ah weydiinaysaa shaygaas meesha ka heli lahayd marka waa faahfaahin yar halkan ku haysanaydan sidoo kale you can ask someone waxaa weydiin kartaa qof at the store oo jooga dukaanka to help you find si uu ku caawiyo inaa u heshid what you need waxa u baahneed inaa u heshid si uu ku caawiyo qof weydiinaysaa su'aashan okay halkan marka waxaa isla hadlayo macaamilka iyo qof ka mid ah shaqaalaha dukaanka macaamilka iyo qof ka mid ah shaqaalaha dukaanka ama supermarketka customer waa macaamiil customerka wuxuu leeyahay ama shaqaalaha dukaanka uu weydiinaya where can I find almond milk almond waa miro af Soomaaliya waxaa u maleynayaa in la dhaho yicib waa miro ka mid ah bahda lowska ka mid yahay almond allaha milkna waa caano almond laga sameeyay caanaha xoolaha bas lagama soo liso almond milkna wuu jiraa where can I find almond milk xageen ka heli karaa mirahaas almond la dhaho caanaha laga sameeyo sales clerk waa qof ka mid ah shaqaalaha dukaanka ama shaqaale dukaan waxaa la sales clerk oo iibinta dhankeeda joogo supermarketyada kale hadda kuwa laymanka taagan waa sales clerk dukaanada markaad tagtid qofka ka gadayo asagana waxaa la dhahaa sales clerk marka macaamilka wuxuu leeyahay where can I find almond milk xageen ka heli karaa almond milk ama caanaha almond xageen ka heli karaa marka shaqaalaha wuxuu ku jawaabayaa sidaan they are on aisle 10 aisle marka waxaa la dhahaa supermarketka sida tusaale supermarketyada kale halkan wuxuu ka hadlaa jumladan supermarket aisle waxaa la dhahaa leemanka dukaanka muxuu ahaa supermarketyada waa taqaanaa leen u safan yihiin alaabta leenkaas waxaa la dhahaa aisle 10 they are on aisle 10 waxay yaalaan leenka 10aad in the second fridge firinjeerka labaad ay ku jiraan they are on aisle 10 waxay yaalaan wadada ama leenka 10aad they are on aisle 10 waxay yaalaan wadada 7aad xagee ka yaalaan in the second fridge-ka labaad gudihiisa ku jiraan fridge-ka labaad ama firinjeerka labaad gudihiisa ku jiraan lambarka 6aad waa sidaan waxayna leedahay how much does this or that cost su-aashan waxay ku saabsan tahay shay markaa rabtid inaad ogaatid qiimaha uu ku fadhiyo ama qiimihiisa inaad ogaatid how much does this or that cost shaygani waa imisa qiimaha uu ku fadhiyo ama shaygaasi waa imisa qiimaha uu ku fadhiyo marka jumladan goorta isticmaali lahayd waa kan faahfaahinteeda halkan inoogu qoranta ama sharaxeeda yar use this phrase isticmaal orahdan when you want to find out markaa rabtid inaad ogaatid the price of something you are holding inaad ogaatid shay aad gacanta ku haysid qiimihiisa or it is right near you ama ku dhow shay aad tilmaami kartid markaa rabtid inaad qiimihiisa ogaatid oo shaygaasna uu yahay shay aad rabtid inaad iibsatid ilaan shay marka qiimihiisa weydiinaysid waxaa u baahan tahay inaad iibsatid marka iibsanaysid waa markuu qiimihiisa ku anfaco use this phrase when you want to find out of the price of something you are holding shay aad gacanta ku haysid markaad qofka shaqaalaha dukaanka soo kor istaagtid ama agtaada taagan yahay ama counterka kale meesha lacagta ka bixinaysa aad taagan tahay qofka shaqaalaha meeshaas taagan aad weydiinaysid shayga ah haysid qiimihiisa oo leedahay shaygani waa imisa ama shaygaasi waa imisa markaa rabtina dhahdid orahdan isticmaalaysaa hadduu agtaada waxa gacanta ku haysa hadduu yahay this isticmaal how much does this cost kani waa imisa qiimihiisa this waa kan thatna waa kaas shay aad tilmaamaysin marka uu yahay waxaa leedahay how much does that cost marka waa tusaale yar halkan idinkugu haya
customer عميلك marka halkan su'aashan wax weydiinayo customer how much does this shirt cost how much does this shirt cost shaarkani waa imisa waa shaara sidan u haysid aad leedahay shaarkani waa imisa qiimihiisa how much does this shirt cost shay ka fogaad tilmaamaysaa marka how much does that lamp over there cost how much does that lamp over there cost nalkaasi xagga yaala waa imisa qiimihiisa lamp waa laambad waa nal how much does that lamp over there cost marka su'aashan oo isticmaal marka dukaan joogtid oo u baahan tahay shay inaad ogaatid qiimihiisa waxaan rajeynayaa inaad fahanteen ama intaan soo sharxay cashirkan ay la socoteen si fiican marka halkan waxaan ku haysanaa midda toddobaad intii aan ka soo hadlayno dhan way ka duwan tahay qof markaas su'aal weydiisid oo su'aashaada kaaga jawaabo ama information weydiisid informationkaas xog uu ka siiyo ama jawaab uu ka siiyo waxa u baahan tahay qofkaas inaad u mahadcelisid mahadsanid inaad dhahdid ilaa waa qof ku saaciday in information lagu siiyo ama xog lagu siiyo waa qayb ka mid ah caawinaada marka waxaa leedahay mahadsanid marka how to thank sidee u mahadcelinaa ama sidee u mahadcelinaysaa ama sidee loo mahadceliyaa how to thank marka qof marka u mahadcelinaysid waa kan waa afar waa badan yihiin aad iyo aad u badan yihiin marka waa afarta ugu muhiimsan halkan waxaa kugu soo qaatay ama kugu tusi doona insha Allah midda koobaad qofka ugu mahadcelinaysid waxaa leedahay ma kaliya ku filan thank you so much aada u mahadsan tahay thank you so much aada u mahadsan tahay thanks a lot mahadsanid in badan thanks a lot mahadsanid in badan thanks mahadsanid thank you for your time waad ku mahadsan tahay waqtigaaga intaasi waxaa inoogu dhan cashirkeeni maanta intiinan cashirka xiga ku kulmi doono waxaa idinkaga tagay khayr iyo baraari barwaaqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh